xaqiiqooyin aad ogeyn oo ku saabsan koobka adduunka ee sanadkan waxaa yaaban kooxihii qowmuluudinta iyo mulxidiinta ee ku dabagaban jiray xuquuqda aadamaha. waxaa si isdaba jooga usoo baxaya waxyaabo badan oo ku cusub koobka adduunka ee sanadkan. waxyaabo kale oo cajiiba oo koobka adduunka ku saabsan ayaan sidoo kale isla arki doonaa, balse ugu horreyn muuqaalkan like saar haddii aadan nala soconna na soo raac. muuqaalkan waxaan ku arki doonaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka ku saabsan koobka adduunka ee sanadkan qatar lagu qabanayo. qaarkood waxay u gaar yihiin dalkan islaamka ah ee qatar, kuwo kalena waa kuwo guud oo ay fiifa shaacisay. waxyaabo badan oo aan horay koobabkii hore ee dunida loogu arag ayaana ka mid ah. lambar kow, waxyaabo mamnuuca koobka adduunka ee sanadkan waxaa martigelinaya dal islaam ah, sidaa daraaddeedna waxaa mamnuuc ka ah kow, khamri cabidda. la imaanshaha khamri dalka qatar waa mamnuuc, lalamana soo geli karo garoomada iyo xitaa goobaha shaariciyada ah. lambar labo, dadka xadgudbay ee ficilada qowmuluudiinta ku faana inay ismuujiyaan waa mamnuuc. lambar saddex, waxaa mamnuuc ah cawro muujinta xishood la'aanta ah. afar, aflagaadada. shan, ixtiraam la'aanta goobaha cibaadada. lambar lix, codadka iyo muusiga dhawaaqa dheer. toddobo, shukaansiga. sideed, inaad qof sawir ka qaado idin la'aan. sagaal, daawooyin lalama iman karo dalka qatar. toban, waxaa mamnuuc ah sawirada qaawan ee dareenka kicin kara. kow iyo toban, ismuujinta kooxaha fikradaha xunxun xambaarsan, gaar ahaan kuwa reer galbeedka ee xuquuqda aadamaha ku dabagabada. labiyo toban, wax walba oo diinta iyo dhaqanka islaamka liddi ku ah. xeerarkaas ayaana khasab ku ah inay raacaan dhammaan dadka ka qaybgelaya koobka adduunka ee sanadkan. qofkii jabiya mid ka mid ahna xabsiga ayaa loo taxaabi. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. waxaa iyana xusid mudan in dalkan koobka lagu qabanayo uu sanadkan joogo daaciga weyn ee sheekh saakir naayig oo ku caana dooda iyo muxaadarooyin waaweyn oo ay dad badani kusoo islaamaan. dhanka kale waxaa quruxda ammaanka iyo dhaqanka suuban ee islaamka la amakaagay reer galbeedkii fikirka xun ka aaminsanaa diinteenna suuban ee islaamka. lambar saddex, kharashka ku baxay dalka sanadkan koobka adduunka martigelinaya ee qatar waxa uu ku bixiyey lacagtii ugu badnayd ee abid lagu kharash gareeyo koob adduun, wuxuuna dalkani kaabayaasha dhaqaalaha ee qabashada koobka adduunka sahlaya ee ay ku jiraan garoomada ciyaaraha, laamiyada iyo hoteelada ku bixiyey adduun lacageed oo dhan 200 bilyan oo dollar. dhacdadii ciyaareed ee aadamuhu ku bixiyeen kharashkii ugu badnaa abid, lacagta ku baxday u diyaargarowga iyo martigelinta koobkan waxay kaalmo dhaqaale kaabid ah ugu filaan lahayd dhammaan muslimiinta baahan taagta daran ee adduunka ku nool maanta. dalka qatar wuxuu qabsoominta koobkan adduunka u diyaariyey 8 garoon, taasoo ka dhigan tiradii ugu yareed ee garoon ciyaareed ee martigelisa koobka adduunka sanadihii u dambeeyey. 8 garoon keliya mid ka mid ah ayaa dib u habeyn lagu sameeyey, dhammaan 7 garoon ee kale waa kuwo hadda farta laga qaaday. lambar 4, tirada dadka kasoo qaybgelaya. mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee koobka adduunka waa tirada dadka kasoo qaybgelaya, waxaana sanadkan koobka kasoo qaybgelaya tiradii ugu badnayd ee garoomada ka daawata ciyaaraha koobka adduunka, waxaana arrintaa loo aanaynayaa dalkan oo ku yaala bar ay dadyo badani u fududahay inay usoo socdaalaan. lambar 5, garoomo leh qaboojiyayaal. mid ka mid ah waxyaabaha ku cusub koobka adduunka waa in maadaama cimilada dalkan ay aad u kulushahay ay ku xidhan yihiin garoomada qaboojiyayaal. dhammaan 8 garoon waxay leeyihiin hanaan dhammaystiran oo qaboojiyayaal. lambar 6, waa markii labaad ee koobkan lagu qabto qaaradda aasiya. dalka qatar ayaa nasiib u helay in markii labaad ee koobkan adduunka lagu qabto qaaradda aasiya uu isagu martigeliyo, maadaama koobka adduunka ee sanadkii 2002 ay wada martigeliyeen dalalka jabaan iyo kuuriyada koonfureed oo ku wada yaala qaaradda aasiya. lambar 7, faa'iidada dalka martigelinaya. dalka koobka adduunka martigeliya waxa uu ka helaa faa'iidooyin dhowr ah sida kobac dalxiis, sharafta ahaanshiyaha dal martigeliyey koob adduun, iyo fursadda ciyaaridda koobka adduunka. waxaase dhammaan wadamadii lagu qabtay koobkan lagu arkay arrin kale oo cajiib ah, taasoo ah inay bateen tirada ubadka dhalatay sanadkii xigay koobka. lambar 8, wakhtiga la qabanayo. qaaliban waxaa koobka adduunka la qaban jiray bartamaha sanadka ee bisha Juun, laakiin sanadkan waa uu ka duwan yahay kuwii hore maadaama wakhtiga ay cimilada dalka qatar aad u kulushahay oo ay gaadho 40 degrees centigrade. waxaa koobkan markiisii ugu horreysay la qabanayaa dhammaadka sanadka, waxaana markan isla arki doonaa qaar ka mid ah xaqiiqooyin guud oo ku saabsan koobka adduunka. lambar 9, Brazil waa dalka keliya ee ka qayb galay guud ahaan ciyaarihii koobka adduunka tan iyo markii la bilaabay qabashadiisa, waxayna qaadeen 5 koob adduun. lambar 10, Hindiya koobka adduunka ee sanadka 1950 dalka Hindiya ayaa ku guuleystay inuu qayb ka noqdo wadamadii ku guuleystay inay ka qayb qaataan, laakiin waa loo diiday inay ciyaaraan maadaama oo ay rabeen inay cagacadaan ku ciyaaraan. hindidu waxay ku marmarsiyoonayeen in kooxdoodu ay ku soo tababarteen cagacadaan, sidaa daraaddeedna aysan kaba ku ciyaari karin. lambar 11, dalal dhowr ah ayaa qaaday koobka, inkastoo FIFA ay xubno ka yihiin 109 wadan, haddana waxaa koobkan adduunka qaaday keliya 8 wadan oo kala ah Brazil, Jarmalka, Talyaaniga, Argentiin, Uruguay, Faransiiska, Ingiriiska iyo Spain. 12 koob la waayey
sanadka 1966 waxaa la waayey koob hadiyadeedkii koobka adduunka. Koobka waxaa la waayey 3 bilood ka hor inta uusan koobka adduunku qabsoomin, waxaana la la'aa 7 cisho. Waxaase markii dambe helay ay jeclaa cunida waxyaabaha ku cusub. Aygu wuxuu ka soo fakaday ninkii lahaa oo markaa telefoon ku hadlayay. Ninkan ayaa markii uu wicitaankiisii dhammaystay dibadda u soo baxay, mise wuxuu arkay baqshad uu aygiisii cunayo. Waa uu ka qabtay, wuuna fiiriyey, mise wuxuu ku dhex arkay koob dhalaalaya. Sidaas ayuuna ugu soo celiyey FIFA. 13 shaacinta FIFA ayaa ku dhawaaqday in wadamada ka qaybgeli doona koobka adduunka ee kalkan soo aadan la badin doono oo ay noqon doonaan 48 wadan, taasoo la rajeynayo inay fursad siin doonto wadamo badan oo ku hanweyn inay mar-uun ka soo muuqdaan garoomada koobka adduunka lagu qabanayo. Lambar 14 goolkii ugu yaab badnaa, goolkii ugu cajiibsanaa ee koob adduun waxaa la dhaliyey sanadka 1938 ciyaartii u dhaxaysay Brazil iyo Talyaaniga. Xulka Talyaaniga ayaa iyaga oo 1-0 ku hogaaminaya ciyaarta waxay gool kulaad ku heleen xulkii Brazil. Ciyaartooygii laadayay khalad uu sameeyey ayayse ku wada qosleen. Intuu go'aan degdega qaatay ayuuse mar kale laaday kubaddii, mise waxay shabaqa taabatay boortihii xulkii Brazil oo weli qoslaya. Sidaas ayayna 2-0 uga badiyeen xulkii Brazil. Ugu dambeyntii, kooxdee ayaad isleedahay way ku guuleysan doontaa koobka adduunka ee sanadkan? Fadlan aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb, muuqaalkana la wadaag asxaabtaada.